kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta wada nagala socota idinlaantii meel kasta caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada waxaanu halkan idinku soo gudbin doonaa muuqaalka kooban shirweynii beesha guuleed garaad barkad ay markaasi ku gaadhay isla markaana ugu soo gabagaboobay deegaanka Balcad oo ka tirsan degmada Woodward shirkaas oo in muddo oo dhan 6 casho uga socday beeshaasi isla markaana ahaa shir ay beeshu kaga hadlayso arrimaheeda ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay deegaankaasi Balcad iyadoo shirkaasina laga soo saaray qodobo markaasi dadkii goobjoogayaasha ahaa ay gaashaanka u daruureen inay qodobo markaasi ay ku farxeen madashan ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaan waxgaradka cuqaasha iyo waliba garaadka guud ee beeshaasi garaad Abshir Saalax Maxamed muuqaalkana waxaa idin daadiinaya isla markaana idin soo gudbin doona anigoo Cabdiraa مسؤولكي تلاهيو مدنتا عدالتيو إناد مدني ميوسينا دالكنا كوما مشو كومي الماريسان ربنا كلا الماريسان ربنا كومي الماريسان ربنا مسؤولكي تلاهيو مدنتا عدالتيو إناد مدني ميوسينا دالكنا كوما مشو كومي الماريسان ربنا كلا الماريسان ربنا كومي الماريسان ربنا ملتري أمان كسوغا حمانتنا ميريو هدو عدو ما قتلو أودكم مقون شيو حقودكم مقون شيو دفاع مرق لان ربنا دفاع مرق لان ربنا ملتري أمان كسوغا حمانتنا ميريو هدو عدو ما قتلو أودكم مقون شيو حقودكم مقون شيو دفاع مرق لان ربنا دفاع مرق لان ربنا افتح وحبر الشاديو كومانكيو قلبي علميكو كوماري ماياي أقوانت مع سادو جهليقا مايران ربنا مدنا مايران ربنا sidoo kale goobtaasi isna waxa goobjoogaha wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Khaatimo Professor Hussein Salban dhagaweyne isla markaana soo dhaweeyay shirka ay beeshu ku gaadhay deegaankaasi iyo qodobadii ka soo baxayba haddii aynu guda galno shirkina waxa uu jawigiisa ku bilaabmay sida tan haddii aynu ku horeyno gaar ahaan qodobadii ka soo baxay Aqal Cabdinaasir Xasan Xirsi oo bilaabay qodob markii garaadka ogaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka hooyooyinka dhammaan beesha guuleed garaad ay shir isugu yimaadeen taariikhdu markay ahayd 18kii bishii 12aad ilaa iyo 21kii bishii 12aad 2012 magaalada Balcad waxay go'aansadeen qodobadan soo socda lambar 1 beeshu waxay isla qaadatay ku dhaqanka shariicada islaamka waa qodobka koobaad lambar 2 beeshu waxay isla qaadatay in alla bari iskugu timaado caam ah taariikhdu markay tahay 20ka bisha koobaad 2013 magaalada Woodward lambar 3 beeshu waxay isla qaadatay in la sameeyo guddi ka kooban 15 xubnood oo ku salaysan 15kii madax ee magta loo bixiyay ugu dambeysay yaani tama ku bixinay qodobkaas aan hadda dul taagnahay guddigaasi xulashuulay waxaa lagu soo xulanayaa lambar 1 inuu sanbalwad lahayn lambar 2 inuu karti u leeyahay xilkasna yahay
lambar 3 inuu siyaasad ka madax bannaan yahay ka afraad beeshu waxay isla qaadatay in talada beesha guuleed garaad iyo siyaasaddu kala madax bannaan yihiin oo aan isku mid ahayn isna dhexgal karin lambar 5 in beeshu waxay isla qaadatay in talada beesha looga dambeeyo guddiga la dhisi doono oqaasha iyo garaadka beesha guuleed garaad lambar 6 beeshu waxay isla qaadatay in shir la isugu yimaado sanadkii hal mar lambar 7 in la kobciyo waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo dhammaan horumarinta arrimaha beesha Ali Ahmed Ali Geri inay joojiyaan dhismaha deegaamaynta ay ka wadaan geed xamarka ayna ka qaataan ciidamada iyo wixii kale ee agab ah iyo meelaha la mid ah ilaaliyaan nabadgelyada derisnimada iyo walaaltinimada annagoo tixraacayna shirweynihii ka dhacay magaalada Buuhoodle ee beesha Ali Geri go'aamadii ka soo baxay qodobkiisa afraad farqadiisa A iyo B oo tilmaamayay in beelaha kale lagula noolaado nabadgelyo iyo deris wanaag buuxa lagana hortago wax kasta oo keeni kara isku dhac ama wiiqi kara wadajirkeena iyo midnimada qodobka 12 waxaanu ka soo horjeednaa cid kasta oo taageero ku bixinaysa deegaamaynta xoolo daaqaynka qodobka 13 waxaanu baaq u diranaa dhulbaanta weyne dal iyo dibadda inay soo farageliyaan arrinta geed xamarka waxna ay ka qabtaan qodobka 14 waxaanu ku baaqaynaa in la ilaaliyo dhammaan dhul daaqsimeedka maadaama aynu nahay dad xoolo dhaqato ah lana joojiyo deegaamaynta cusub kaamamka goynta dhirta xidhmooyinka dhuxusha bacda iyo wixii la سند كحديو على دها كركوتيو ومعي رصاصيو كنت على ردداكي قلب ليسكو ويرارين عبدان سند كحديو على دها كركوتيو ومعي رصاصيو كنت على ردداكي قلب ليسكو ويرارين ciyaarta wada nagala socotay haddii aanu intaasi kaga nimaano maxaa ra'yigii dadweynuhuna uu ahaa ama madashaasi sidee bay u arkayeen dadkii ka soo qayb galay hadalladoodu waxay u dhignaayeen sida tan karaadka duqaasha dhalinyarada odayaasha hadalna 18 qodob ee ay soo gaadheen xuqaashayada iyo guddiyada ku soo gaadheen shirka Afalacad inaanu u fulino dabta ay u dhigeen deegaangelin iyo inaanu kala midaysanahay dhalinyaradii shirka qabatay waxa ay ka fikireen deegaanka danqanaya